Wuxuu ku bilaabmaya saaraya wiilka gees oo jooga meel madadaalo ah oo aad u faraxsan yihiin waqtigooda qaadanaya kadibna marka dhameeyaan waxay ku laabanayaan gurigooda ilaa jidka ku jiran kees wuxuu weydiinaya hooyadii inay u iibiso baaskiil cusub laakiin waxay u sheegaysaa inay awoodi karin hadda balse ay isku dayi doonto inay u iibiso sanadka cusub markuu caroodo waxay isku dayaysaa inay u dejiso balse si lama filaan waxaa arkaya qof hortaagan gaariga waxay uga leexanaysaa si aynan u jiidin way ka fogaanaysaa meerada gaarigeedana oo jebinaysaa wadadana way ka dhacaysaa saar waxay ka degaysaa gaariga si usoo fiiriso qofka ay jiidi gaadhay waxayna ogaanaysaa inay tahay haween weyn oo waayeela oo xiran jaakad madow oo jigeeda qarsan oo eray aan la garan karin ku hadlaysa sida sixirka ama luqad kale kadibna haweeneydu waxay fiirinaysaa kiis oo saaran gaariga taasoo cabsi gelinaysa saare waxayna qaadanaysaa meeradii jabtay waxayna ku laabanaysaa gaariga oo wiilkeedii saaran yahay waxayna sii aadayaan gurigeeda waxayna ku nooshahay guriga keerigeeda iyo wiilkeeda iyada oo ka mas-uula dayactirka gurigaas saare waxay hoos ugu tegaysaa basementiga hoose si ay uga soo qaadato qalab markay maqasho wiilkeeda oo qaylinaya si degdeg ay ugu soo laabanaysaa si u fiiriso waxayna arkaysaa isagoo saacada quraarada si ay uga saarto guriga balse Chris wuxuu ka codsanayay inay disho sababta wuxuu ka baqayaa inuu dib ugu soo laabato guriga sheegay in aabihii u iman lahaa markii ay guriga soo degeen balse aan weli u iman waxaan u sheegay inay tahay beeraley isagoo careysan wuxuu u ordayaa keynta keligii waxaana hooyadii bilaabaysaa inay raadiso ilaa ay ka aragto hub weyn oo ku yaala dhulka kadibna wuxuu la kulmayaa wiil waxay la kulmaysaa wiilkeeda u yeedhiya sababta wuxuu ka baqay keenta kadibna wuu wada laabanaya markay habeenkii tahay saara waxay wada cashaynayaan asxaabteeda iyo agaasimaheeda Louis habeenkii aad buu xaajisay waayo ma jirin waxay ka wada hadlaan ilaa ay ka maqasho iyagoo ka hadlaya sheego ku saabsan haween waayeel oo waaran oo u dhow gurigeeda oo lagu magacaabo Nuuriin waxayna sheegay inay dishay wiilkeedii kaliya James oo ahaa wiil yar oo wanaagsan waxay Nuuriin maalin ay u gashay fasalka wiilkeeda oo ay ku qaylisay bilaa sabab ilaa shaqaalihii iskuulka faragelin ku sameeyeen kadibna boolis ayaa u yimi oo xiray waxaana markaa kadib loo diray isbitaalka maskaxda isla markii ay isbitaalka ka soo baxday waxay baabuur jirsisay wiilkeedii oo dishay mana jirto cid og xaqiiqda hadalkaas inay dhab tahay in kale habeenkii oo dhan Saara waxay ka fikiraysaa hadalkoodii hurdana uma iman ilaa ay ka maqasho cod gurigeeda ka soo baxaya si ay u ogaato halka uu codku ka imanayo ugu horreyn waxay soo fiirinaysaa qolka wiilkeeda wayna ka soo waayaysaa guriga oo dhan bay ka baaraysaa waxayna la kulmaysaa albaabka guriga dambe oo furan gurigay ka soo baxaysaa waxayna aadaysaa keynta laga yaabay in halka ka hesho wiilkeeda waxayna wadataa tuush weyn marka ay daasho waxay kusoo laabanaysaa guriga si ay u wacdo booliska waxay dareemaysaa waxa socda gadaasha waa wiilkeeda oo taagan waxaan weydiinay maxaa ku dhacay waxay ku odhanaysaa halkee joogtay wuxuu ugu jawaabayay inuu qolkiisa joogay laakiin iyadu way ogtahay inay qolka kasoo baadhay aanu joogin maalinka kale waxay aadaysaa dhakhtarka si ay u soo ogaato caafimaadkeeda dhakhtarku wuxuu arkayaa nabar ku yahay waxayna u sheegaysaa inuu ka dhashay shil ka dhacay sanadkii hore nabarka ugu mararka qaarkood bararo kadibna caadi u noqdo kaas kadib ayay guriga soo laabatay si ay cunto ugu kariso Chris waxay u yeedhisay si uu yimaado oo wax u cuno TV kadibna marka ay jikada kusoo noqoto waxay si lama filaan u arkaysaa wiilkeedii oo fadhiya miiska iyadoo aan dareemin inuu soo galay Saara ayaa maalinkii kale ay u tagaysay wiilkeedii inay suuq ka soo qaado waxayna arkaysaa inuu sameeyay saaxiibo cusub inkastoo uu markii hore diiday inuu qof la saaxiibo intii ay jidka kusoo jireen waxay mar kale arkaysaa haweeneydii waayeelkeeda magaceeda Nuuriin iyadoo jidka dhexdiisa ku socota Saara ayaa gaarigeeda ka tagaysa waxayna weydiinaysaa sababta ay kaliya u socoto jidka laakiin Nuuriin waxay u sheegaysaa wiilka la socday inuu wiilkeedii ahayn ninka Nuuriin oo la dhaho Bradley ayaa u imanaya wuxuuna raali gelin ka bixinaya inay wadada dhexdeeda istaagtay waxay isbaranayaan Saara Nuuriin waxay si toos ah ugu tagaysaa daaqada Chris Saara waxay u baqaysaa wiilkeedii markay Saara isku daydo inay ku laabato gaarigeeda Nuuriin waxay isku dayaysaa inay qayliso una sheegto inuu wiilkeedii ahayn waxay ku qaraacaysaa daaqada madaxeeda ilaa madaxeedu ka dhaawacmo kadibna Saara si degdeg ah ayay halka uga cararaysaa maalinkii xiga Saara iyo wiilkeedii iyagoo ka soo noqday safar waxay arkayaan Nuuriin oo ku jirta beerta gurigooda marka ay u dhawaadaan waxay ogaanayaan inay dhimatay iyadoo madaxeedu dhuhu kaasay oo jirkeeduna shimbir cunayaan degdeg ayay booliska ula xiriiraysaa oo ugu sheegaysaa wax dhacay boolis marka ay maadaan warbixin ayay siinaysaa Saaro waxayna dib ugu noqonaysaa shaqadeedii dukaanka saaxiibadeeda Louis waxayna weydiinaysaa haddii ay marna dareentay in carruurteedu noqdeen kuwo aan la fahmi karin shakhsiyadooda oo isbedelayaan oo sidii hore aan ahayn iyadoo u sheegtay in wiilkeedu dhaqamadiisu ay qariib noqdeen xiliyadii ugu dambeysay Louis ayaa isku daysay inay u dejiso Saara iyadoo oo leh Louis inay caadi tahay in carruurta mararka qaarkood dhaqamo kala duwan muujiyaan markay Saara shaqadeedii dhameysay waxay tagaysaa aaska Nuuriin halkaas oo ay ku arkayso dhammaan muraayadii guriga oo daboolan waxay kula kulmaysaa Bradley kaasoo ka raali gelinaya waxay xaaskiisa kula kacday oo sheegaya inay dhimatay Bradley oo wuxuu bilaabay inuu ka hadlo noloshiisa oo uu sheegay inay faraxsanaayeen markii ugu horeysay wiilkoodu dhashay xaaladooda ay isbedeshay markii wiilkoodu gaadhay 8 jir waqtigaas oo Nuuriin ay ku qanacday wiilkan inuu wiilkoodii ahayn wiilkoodii saxda ah ahayn balse uu yahay qof kale waxaana la ogaaday xaaladeeda inay tahay xanuun maskaxeed oo aan daawo lahayn James wuxuu gaadhay iyadoo wadada gaari si lama filaan ah u jiiday aaska dhamaada Saar waxay go'aansanaysaa inay orod ku sameyso keynta waxayna arkaysaa alaabteedu lahaa oo ugu jeclaa
oo meel lagu tuuray meel u dhow godka waxayna guriga kusoo laabanaysaa inay wiilkeeda weydiiso alaabtiisii ku timi kaynta isagoo loo ogolay inuu tago halkaas Chris wuxuu ku andacoonaya inuusan been sheegin oo inuu tagin kaynta laakiin wuxuu bilaabay inuu cadhoodo ilaa uu miisriixo sidii qof leh awood aan caadi lahayn saar weyna xasaman karanayso waxay ogolaatay inuu Chris qolkiisa galo kadibna saar waxay aadaysaa qubeyska marka ay kasoo baxdo waxay maqlaysaa codka imanaya qolka Chris marka ay eegaysaa waxayna arkaysaa isagoo cayaan dhulka soconaya qabsanaya oo cunaya saar waxay isku dayaysaa inay si tartiib ah uga dhaqaaqdo kor intaanu arag laakiin talaabooyinkeeda ayaa cod sameynaya markii ayuu Chris soo baxaya si uu u hubiyo haddii ay hooyadii aragtay iyaduna waxay iska dhigaysaa mid ku jirto qolkeeda saar waxay maalinkii xigay wiilkeeda u qaadaysaa dhakhtarka si ay u baarto dhakhtarkana wuxuu ku qancinayay in caafimaadkiisu fiican yahay marka uu sheegto inuu wiilkeedu cuno cayayaanka wuxuu dhakhtarku u sheegayaa inay jiraan dhowr sababo oo uu sharaxi karo wuxuuna intaas ugu sii darayay in carruurta daadiisa ay sameeyaan waxyaalo aan caadi ahayn dhakhtarku wuxuu sidoo kale hubinayaa inay weliyadu qaato dawooyinkeedii hurdada iyo dejiyaha ee uu qoray saar si kasta ma qaato dawadaas waxay iibsanaysaa kamarad si ay u aragto wiilkeedu wuxuu sameeyay habeenkii saara waxay kamarada ku qaranaysaa dalool yar oo ku yaala qolka Chris aan uga shakiin waxayna u deynaysaa inay maalin oo dhan duubto waxa ka dhacay qolka kadibna waxay aadaysaa xafladda iskuulka Chris iyadoo oo intaha ku haysa dhaqankiisa iyo waxyaalaha aan caadiga ahayn oo ay ku aragto xafladda ku jirta waxay xasuusanaysaa hadallada Nuuri ee ku saabsanaa wiilkeeda dhabahaana u dareemaysaa inuu Chris u muuqan wiilkeedii shakhsiyadiisuna ay tahay shakhsiyad duwan oo aan shabihin shakhsiyadda wiilkeedii oo wax ka qaldan sida wax uga qaldanayeen Nuuriin camal oo kale saar waxay aadaysaa guriga saaxiibadeeda Louis waxayna u sheegaysaa inuu maleynayso inuu wiilkeedii ahayd oo wax ka qaldan yihiin kadibna waxay u ordaysaa guri marada meesha ay ku qarisay sidoo Chris kaga timi iskuulka oo aysan wadan isla markay saar guriga tagto waxa uu dhaqaaqaysaa qolka wiilkiisa waxa uu wiilkeedu sameeyay habeenkii oo dhan waxaana la yaabsay wuxuu ku aragto kamarada waxayna u soo qaasay kamarada si uu soo tusto Bradley waxayna ku oranaysaa xaaskiisa inaysan waalayn oo ay saxsaneed waxayna tusaysaa kamarada laakiin wuxuu u sheegay inuusan wiilkeedu waxba ka qaldanayn sidoo si isdabajoog oo qancinaysa inuu ku dhacay wiilkeeda Chris wixii ku dhacay wiilkiisa James kadibna uu xanaaqay wuxuu u tuuray kamarada dhulka saar waxay soo qaadanaysaa kamarada waxayna dib ugu soo noqonaysaa gurigeedii si ay ugu soo saarto memory kamarada kadibna waxay ogaanaysaa in wiilkeedu guriga yimi markay ay weydiinaysaa sababta ay ugu saartay iskuulka waxayna ugu jawaabaysaa in yar xanuunsaneed oo hadda caafimaad qabto waxay ku oranaysaa inuu sameeyo cuntadiisa uu jecel waxayna ku daraysaa dawada hurdada u seexiso kadibna markay cuntada dhameeyay waxay u sheegaysaa inay doonayso inay wada ciyaaraan ciyaartooda jecel markay xaqistay inuu wiilkeedii dhabta ahayn Chris ayaa soo kacay meeshuu fadhiyo wuxuuna soo dhaaqay dhinaceedii waxaana si wada sayna tiraad inuu wiilkeedii ahayn oo ay doonayso Chriskeedii dhabta laakiin wuxuu awooday inuu qaado oo uu dilo oo gidaar ku dhufto ilaahay ka miir beesho markay soo miirtato waxa arkaysaa wiilkeedii horteeda god ku qodaya madaxeeda ku aasaya sidii uu dilay Nuuriin camal oo kale markii uu Chris hubiyay inay dhimato ayuu ku agsuuxaya saar si dhab ah uma dhiman waxay iska dhigaysay inay dhimato si uu qanacso Chris isla markay ay dareeto inuu ka fogyahay waxay soo kacaysaa waxayna arkaysaa isagoo suuxay sababtoo ah daawadii hurdada cuntadiisa ugu tartay waxaana lagu hajiidaysaa ilaa ay ka geyso dabaqa hoose iyadoo daalan waxa gacanteeda ku jira miyaarad oo ay ku hubinayso xaqada maxaa yeelay miyaarada ayuunbaa muujisa xaqada runta hadii jira wax qarsoon runtu waxay horteeda ku arkaysaa makhluuq qariib ah oo ay ka Chriskeedii tan waxay u sharaxaysaa sababta Nuuriin gurigeeda ugu buuxay miyaarado iyadoo hubinaysa wiilkii la joogay ka duwanaa wiilkeedii James dhabaha laakiin cidna ma rumaysanyada saar waxay sugaysaa inuu Chris soo meerso si ay u weydiiso su'aalo ku saabsan wiilkeed waxa ku dhacay ishu tagay laakiin markuu soo miirtay wuxuu bilaabay inuu weeraro si uu marka loo dilo waxay yaqaansanaysaa inuu wiilkeedii dhabta ahayn waxay madaxa ku dhufanaysaa gidaarka si uu miir beelo waxay ku xiraysaa dabaqa hoose waxay go'aansanaysaa inay u baahan tahay inay tagto godkii ku keenta markii halkaad ku arkaysaa dhexdiisa ciid dhaqaaqaysa oo hoos u siibanaysa ilaa ka liqayada waxay hoos ugu dhacaysaa godkii waxayna ogaanaysaa inuu jiro wadooyin lagu socon karo waxay si tartiib ah ugu soconaysaa dariiqii ilaa ka hesho wiilkeedii dhabta kor u qaadan wiilkeedii qabsan saar waxay la kulmaysaa makhluuqaad qariib oo aad moodo makhluuqaadku u eg fadaa'iga isku day inay qaataan muuqaalka bini'aadamka oo daba ordayada saar ilmaheeda qaadanaysa wana soo baxsan kahor mid kamid ah makhluuqaadka ayaa qabsanaya lugteeda isagoo isku bedelaya iyadoo halkaa taagan yacni qaadanaya muuqaalkeeda ama shakligeeda kadibna waxay dilaysaa waxayna awoodaysaa inay iyada iyo wiilkeedu ka soo baxaan godka si ay uga tagaan magaalada dhan waxay kaga tegaysaa wiilkeeda gaariga waxayna gelaysaa guriga si ay uga soo qaadato furaha waxayna maqlaysaa codka Chris isagoo barya si ay uga saarto meesha haddana mar labaad ayuu isku dayay inuu weeraro marka waxay go'aansanaysaa inay guriga dhan gubto si ay uga takhalusto waxay qaadanaysaa gaariga iyada iyo wiilkeeda oo la socda si ay xsadaan godka iyo makhluuqaadka qariibka ay soo wajaheen waxay dib ugu noqonaysaa nolol caadiya kadib markay soo aragto waxyaabo naxdin leh waxay dib ugu laabanaysaa waxbarashadeedii ay taasoo ay ka tagtay marka uurka lahayd labadoodu waxay ku noolaanayaan guri yar oo ku habboon mar walba waxay sawiraysaa wiilkeedii si ay xaqiiqdiisa ugu aragto kamarada waxaanu ahaa wiilkeedii dhabta samaynaysaa sidii Nuuriin iyadoo gurigeeda kasoo buuxinaysa miyaarado sidii haddii makhluuqa qariibka isku dayo inuu qaato muuqaalka ama shakliga wiilkeeda si uu awoodo inuu ogaato waxay saari Chris ku dhamaysanayaan noloshooda ammaan iyo farxad iyagoo ka fog khatar kasta